xaflad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay 30 arday oo barashada quraanka ka dhameysatay madrasada Ibn Qayyim ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ardaydan dhameysatay barashada quraanka oo wax ku baratay madrasada Ibn Qayyim ayaa munaasabada ku soo bandhigay aqoontii ay barteen oo ay kamid ahaayeen aqrinta iyo tafsiirka quraanka سيرة النبي محمد نبتقليه نحريس كل كيسها هاته عقيدة إسلامك يسؤالي جواب الديني مقاوى ربك إسلامك أركان الإسلام على 5 نحيت قصة الكشة سورة قلم أمنون وذاك أمقام غير لها كل شيء يسمى مساكين واحدة سينين كدفنا إلى بيت عذاب كرسولي يا حافظ القرآن بوركت للإنسان من عند الرحمن حلاك بالإيمان. qaar ka mid ah culimada aqoon-yahanada iyo waalidiinta ardayda oo munaasabada ka hadlay ayaa muujiyay farxad iyo mahadnaq iyagoo si weyn u amaanay habka waxbarasho iyo tarbiyada diineed ee ay madrasadu siiso caruurta Soomaaliyeed. ummatul Muhammad nabiga kaleey salaatu wasalaam dumarkoodii iyo raggoodii ayagoo la isku daray ayaa waxa uu nabigu yiri khayrukum dadkiinaan sidaad u dhantihiin ummatul Muhammad waxa uu khayr badan من تعلم القرآن نكي قرآن كبرتي وعلمه الناس دتكنا سيبري waxbarashadu iskama shaqeyn karto waxay u baahan tahay dadka waxbarashada ka shaqeynaa in lagu garab istaagay u baahan yihiin inta aad u baahan tihiin oo dadka familiga ilmaha loo barayo wax intay u baahan yihiin oo kale culimaduna u baahan tahay marka sida aad reerihiina iyo ilmihiina uga warqabtaan culimada wax idin baraysa ilmahana in laga warqabo intaasna waxa weeye waa dardaaran muslimnimadaas ilaahay uu nasiyay ayaan maanta halka ku soo gaarnay iyo iimaanka caruurtaas juhdiga la geliyay mustaqbalkooda wuxuu ku dhismi karaa si wada jir oo nabad qaba in loo wada joogo oo loo wada jiro waalidiintu xishmad iyo karaamo ay ku wada dhaqmaan. maamulaha madrasada Ibn Qayyim Islamic Center Macallin Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa sheegay in madrasadu ay door muhiim ah ka qaadato korinta jiil ku barbaara diinta islaamka gaar ahaan caruurta ku nool qurbaha. waxaan maanta xaflad u qabanay 30 arday oo quraanka ka dhameeyay madrasada Ibn Qayyim 30 ka arday waxa ahayn dufcadii 9aad ee ka qalin jabisay madrasada Ibn Qayyim sidoo kale waxa shahaadooyin la guddoonsiiyay ardaydii imtixaanka u galay tafsiirka quraanka kariimka ee kaalmaha koowaad ka galay iyagana meesha lagu soo bandhigay waxa kale sidoo kale meesha lagu soo bandhigay arrimo kale oo diiniya sida fiqiga siirada axaadiista iyo luqada carabiga iyo anaashiida madrasada Ibn Qayyim ardada dhigata guud ahaan waa 500 arday madrasada Ibn Qayyim waxay ka kooban tahay 3 baraanji oo ku yaala magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafadda Mayfair. ugu dambeyn ardadii dhameysatay barashada quraanka kariimka ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyin iyo waalidiinta oo abaalmarino gaar ah siiyay caruurta si ay ugu dhiirigeliyaan muhiimadda ay leedahay barashada diinta islaamka. Maxamed Sheekh, Universal TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.